Asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka. Maalin hore video soo geliyaan ka hadlayo time management iyo qorshaha nolosha sida loo sameeyo. Maasha Allah, dad badanaa soo daawada videoyada waana arkay kommentyada. Soo hadeer halkan 10 waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo oo aniga aad ii anfacay insha Allah idinkana aan rajeynaa inaa ka faa'iidaystaan. Midda koowaad horta mar walba waa inaa salaadaada tukatid. Meel walba oo joogto salaadaada ii kaa tegin. xiriirkaaga adiga ilaahay mar walba waa salaada soo salaadaada ku dadaan. Midda labaad waxyaabaha dadka badanaa maaragta ay gadaal u dhigaan biilasha la bixinayo deymanka lagu leeyahay lacagaha waxyaabaha ku saabsan dadka badanaa dhaqsiiska ma bixiyaan marka waa stress yar oo jirkaagana ku jira because biil haddii lagaa rabo waaya u sugay bixi lacagta ha sugin inta biilkaas kugu bato waqtiga kugu dheeraado. Okay, soo mar walba biilashaada waqtigooda bixi. Okay, midda xigta habeen walba alaabta guriga ku taala jikada oo nadiif ah ka seexo. Alaab ayada ku taala oo wasaq ah ha ka seexanin. Maalinta kale markaa soo kacdo gurigaaga oo nadiif, kushiinkaaga oo nadiif insha Allah. Midda kale mar walba subax walba soo kacdo sariirtaada firaasho. Sariirta qurux iyadoo ah ka tag qolka. Qolkaaga markuu qurux badan yahay adigoo daalana guriga aad timaado sariirtaadana ay ku diyaarsan tahay maasha Allah. Okay, rag iyo dumarba waa la hadlaya halkan. Midda kale exercise samee, dhaqdhaqaaq jirkaaga markaa u sameedo farxad gooni ah ku galaysawa. Marka in badan dhaqdhaqaaq samee. Marka carruurtaada banaanka la soo ciyaaraysa la ciyaar, adiga xitaa xaraga kaboodka samee, yoga samee, wax uun samee si jirkaaga uu dhiiggiisa u kaco. Midda xigta waa cunto fiican oo caafimaad la cun. Cuntooyinka caafimaad kale markaa cunto moodkaaga ama farxadaada iyo maskaxdaada dhan way isbedelaysaa. Cuntooyinka sokorta ku badan tahay iyo waxyaabaha faadka ku badan yahayna iska jooji. Healthy lifestyle aan badanaa ka hadlaa videoyo badana TikTok waa soo dhigaa insha Allah soo daawada. Midda xigta midda aad ay muhiim u tahay dadka ku dhiba ama dadka toxica kugu ah dadka xaasidka kugu ah noloshaada iska bixi. Dadka noloshaada aanan ku faraxsanayn waqti ha ku dhuminin. Dadkaas waxaa wanaagsan inaad ka qaadato distance, inaad ka fogaato because maskaxdaada ay ku ciyaarayaan. Dadkaas ka fogaaw. Midda kale waxaa waaye waxyaabaha social media kusoo gudbinaysid ka fakir. Wax walba inaad soo gudbidid sax miya. In adiga farxadaada waqti walba lagula qaybsado sax miya. Ka soo fakir intii aadan social media soo dhigin because isha bini'aadanka waa khatar. Insha Allah soo iska ilaali. Midda xigta waxaa waaye waxyaabaha ku dhahaysid maskaxdaada naftaada ka hadlaysid ha noqoto waxyaabo positive affirmation al dhahaa. Qofka waxyaabahu naftiisa u sheego maskaxdiisa u sheego wuu iska aaminaa badanaa. Soo haddii adiga taa qof jecel inuu meel qurux badan shaah ku cabo meesha shaah ku cabaysid quruxso. Haddii taa qof kofi jecel kofigaaga ha kuu macaanaado. Waqti walba oo wax walba sameynayad isku day inaa Ilaahay u mahad celido. Damoora Ilaahay u mahad celido damoor qanaaca iyo wanaag iyo qurux ah hesho. Waligaa wax kastoo Ilaahay ku siiyo ku farax. Ha ka walwalin qof kale. Noloshaadana dadka kale ha la compare garaynin. Qofkaas kale wuxuu haystaa adiga waxba kaama gelin. It's none of your business. Wax Ilaahay adiga ku siiyo ku farax. Insha Allah. Midda xigta gurigaaga nadaafadiisa u sameey waqti. Waqti walba nadaafad ma aha guriga. Soo isniinta wax guriga ka nadiifi. Talaadada in kala nadiifi. Arbacada wax kala nadiifi. Marba step by step. Maalin walba waqti yar sii. Inti meel qurux badanna ku noolaaw. Gurigaaga markuu kuu hagaagsan yahay, kuu qurux badan yahay, maskaxda xitaa way kuu degaysaa. Farxadaadana way kuu kordhaysaa. So meelaha aad fariisanaysid, meelaha seexanaysid, meelaha cuntada ku cunaysid, mar walba qurux ha kuu ahaato. Because indhaha waxyaabaha quruxda badan markay arkaan maskaxdana happy ay dareemaysaa iyo farxad insha Allah. Marka habeenkii markii aad seexanaysid telefoonka iska yaree. Screen time-ka uma wanaagsan indhahaaga. Waxaa isku daydaa inaad qalin iyo warqad sariirtaada ag dhigato. Lacalla haddii wax kugu soo dhacdo qalinkii warqadaas ku qoro. To-do list al dhaha. Berri maxaa ii qorshahaaga dhan qoro. Telefoonka iyo uma baahnid. Ya to-do listkaasna ku soco. Waxyaabaha to-do listka markaa ku qorto maskaxda kaama buuxinayaan. Marka insha Allah taas ku dadaan. Ilmahaaga mar walba u duceey. Waalid hadduu kuu nool yahana waalidkaa ka duceyso.
waalidkaaga ha ilaawin. hooyadaada iyo aabbahi adiga ku soo koriyey xaqay kugu leeyihiin. mar walba oo soo xasuusatona u duceeye, because adiga ilaahay wuxuu ku dhahay aniga caabud, sunnada nabiga raac sala allahu calayhi wasalam, kadibna waxaa lagu dhahay biril waalideyn, kasoo bax waalidkaaga xaq uu kugu leeyahay. so haddii waalidkaa kuu joogana ka ducayso, haddii ay geeriyoodeen u ducee, sadaqana u bixi insha allah. mar walbana ha ilaawin inaa aayadaha fadfududo ilaahayna baro qur-aanka ku jirta u ducaysid. rabbi irxamhuma kamaa rabbayaanii sagiira. ilmahaagana bar si adigay bari kuugu soo duceeyaan insha allah. haddii aan nagu cusubtahay subscribe ta hanaga ilaawin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.